gurigii degmada oo baahida loo qabo inuu caawa u jeedaan oo qolkii weynaa ee hoolka ahaa dhagaxiis ibsan yahay qol yar ayaan doonaynaa lambar 1 baahida koobaad wax laga qabto oo maamulku wax ka qabto qodobka labaad waxa weeyaan waa ceel biyoodka baahidiisu dhinacay tahay waa zero tubooyinka oo dhan waa zero solarku waa zero bamku waa zero wax hagaagsan matoorka baa ku jira bamka zero tubooyinka zero solarka zero waa qodobka labaad qodobka saddexaad waa wadada halkaan iyo seema isku xirta oo 71 kilomitir oo sanadkii la soo dhaafay 2020 bulshada iyo hay'ad xoogay horumarina ay tiri deegaan ku horumarsada iyo bulshada isku tashaday ay laangooyadii sameeyeen ayaa iyadana baahida saddexaad waaye oo laangooyadii go'an tahay baabuurta hadda marto laakiin aan gaadiidku wada mari karin waa wadada noogu dhow oo gobolka noo tagta waa qodobka saddexaad qodobka afraad waa layrka solarka oo laambadaha oo 2015 markii ceel biyoodka la qoday hay'adii SSF oo fanka bixinaysay ay tiri solar baan gelinaynaa intii ka dambeysana bisha dhow baa la inii gelinayaa iyo sanadka dhow baa la inii gelinayaa iyo waa soo socdaa baan la ku hayay mana hayno solarkaasi wuxuu ka qayb qaadanayaa amniga wuxuu ka qayb qaadanayaa bilicda magaalada wuxuu ka qayb qaadanayaa hadda intuu baahidiisa ka qayb qaadanaya waad garan kartaan waa baahida saddexaad afraad weey baahida shanaad waxa weeye iskuulka uu shaqeeyaa hadda inkastoo waqti caqabad naga qabsadeen wuxuu u baahan yahay deyd iyo balaarin iyo macallimiintii oo mushaar wasaaradda kulli hadda xilligan dambe aan wali helin iyagii oo yar waxaan doonaynaa in naloo tayeeyo deydkiina naloo dhiso guryihii oo hadda wasaaraddu ayaanta ay tiri waa ku daraynaa nala kugu daro mashruuca layna hayaabaa la guryaha laakiin deydkii lama sheegin deydkuna waa baahida koobaad oo iskuulka waa qodobka shanaad qodobka lixaad waxa weeye xanaanada xoolaha ma hayno waxaan nahay meesha ugu xoolaha ariga badan meesha Tawfiiq Puntland markii la yiraahdo marba un team odahay goortii 2 sano iyo la joogo noo yimaada shaqaale ma leh xafiis kuma leh baraag lagu dhibeeyo xoolihii macnaha lagu la tacaalo ma leh siiraan ka nahay team baa umar la ku soo tuuraa degmada anaga ka soo gooyo qodobka toddobaad waxa weeye beeraha magaaladu wadankan wadan beerood weeye hadii laga samaysto dad beer samaystay baa jira beeruhu markii roob helaanna waxba laga helaa oo maca qudaartu ku baxda markii roob waayaana waxba laga ma helo dad matoorada inday mar u xiriirsadeen waxa weeye biyihii maca tabar waaya waxa jira magaalada iyo deegaanku mar ay si fiican ugu soo kabteen waa baay taagan baayda sideedaad baa waxay tahay waa khayraadka badda halkan waxay jirtaa 36 kilomitir magaalada koobaad ugu dhow baan nahay waa xeeb ballaaran dadku waa ka shaqaystaa laakiin waxa loo waayay tabar matooradii haba yara dadkii qalab bundu waa iska wada dhooban yihiin qolada khayraadka badda u qaabilsan waxaan doonaynaa in nala ka kabo meeshaas magaaladu way u baahan tahay
ummaduna way ku shaqaysan lahayd oo u baahan tahay in la ka kabo waa codsanayna qoraalka horta noo qoran oo baahiyaha emergency-ha intaas baan soo qoranay qodobka labaad hadda waxa weeye wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka meeshaan markii la fiirsho inkastoo aan dhib ka jirin haddana ma leh cid u joogta oo u shaqaysa oo xuquuqul insaanka nidaamkiisa sistamkiisa uga shaqaysa ma jirto hay'adaha awalta hadee local baa loo ama u imaan jiray ama loo xiriiri jiray hadda waxa moodaa inkastoo hadda ay muddo laba sano ku dhow naga maqan yihiin waxaa noogu dambeysay gurigan hadda aan joogno nimankii dhisay hay'adii waxa iyadoo waddanka wax ka qabta inay wadamada sidoo uga go'een oo xaaladdu yaantan way qarmeen siyaasadda adag baa la isku u go'een iyo in la ilaawo gobolkii iyo wasaaradii baan ilaaween wali hadda maana kala cadeyn karo waxa iyadoo yimaada waxa u dambeeyay isbitaalkaas wasaaradda caafimaadka yes wasaaradda saxaafkan baa ugu dambeysay marka hadda haddii gobolkii iyo wasaaradihii la wareegeen hay'adihii hadda walba ayaa ku shaqayn jiray meesha way ka maqan yihiin xagga dadka danyarta barakac ma qabno ilaahay ka furan mayno laakiin waxaan qabnaa dadku xilligan la joogo waa ka warqabtaan xoolaha oo laga taama jiraan dadkana waa xoolaale dadku aad iyo aad ayuu u nugul yahay xilligan la joogo ilaahay baa ummadda wax gaarsiiya laakiin dadku waa nugul yahay oo arintaas lafteeda in dadka laga kabo waa codsanaynaa anu warbixinta intaasaan uga baxayaa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها حجانك قبل كمدق دمان وحاها وزارة وحبرشدة وزارة الرمها جدها وزارة بيها أما باسوين كسعتها سيدو كان وزارة حنانة حولها بركة عياشة هوينك يقويسك يعافماتك وزارة كلو رنتي فرصة بوايين نسوق جاران قارنا حنوسنا قارنا سفركم أنا kuwaasoo dhan ka socda runtii gobolka mudug waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan madaxda ugu horeeyo maamulka degmada tawfiiq iyo gudigeeda waxaan leeyahay marka waad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib runtii wafdi ballaaran ayaan ahayn oo gudoomiye ku-xigeenka gobolka hogaaminayay wafdigaasoo socdaalkiisu ahaa kuurgalida iyo xaaladda gobolka mudug caawana aan joogno runtii magaalada ama degmada tawfiiq kaasoo aan maanta galinkii dambe aan joognay aan ka shaqaynaynay aan kormeeraynay xarumihii kala duwanaa adeega bixinayay arrimaha bulshada iyo qaybihii kale amniga intaba sidoo kale waxaan u mahad celinayaa sida wanaagsanayd maamulka degmada iyo guddiga iyo odayaashu ay noo soo dhaweeyeen sida sharafta lahayd nagu qadariyeen aad ayaa u mahadsantihiin jazaakumullah waan leenahay sida aad sheegteen waan diiwaangelinay ama waan qorannay baahiyihii kala duwanaa waxaha wasaaradaha dowladda ama laamaha dowladda ama hay-adaha kala duwan ee wasaaradaha socday qolo walba baahideedii ayay qortay aad soo gudbiseen sidii meelihii kala duwan aan usoo maraynay aan la fariisanaynay waxaan isku dayaynaa haddii ilaahay idmo insha allah baahiya aad soo qorateen inaan maaragtay ula laabanno cid kasta ama wax kasta ay khusayso haddii ilaahay idmo sidaad ogtihiin waxbaa ka muuqda deegaanka tawfiiq oo waxaha dowladda qaybo badan ayaa wax ka qabteen qaybaha dhimaanna insha allah waxaan is leenahay iyaguna way ku tala jiraan inay ka qabtaan ama u dhammaystiraan haddii ilaahay idmo waxaan idinku boorinayaa sida aad u dadaalaysaan aad ugu dhiirana tihiin dhankiina aad isku tashi u samayseen inaad usii wadaan laamaha dowladda oo hadda gudoomiyuhu ugu horeeyo maanta halkan ku socda oo hogaaminayo kulankeenaan ama safarkeenaan runtii uu ku mahadsan yahay hogaamintan oo nagu hogaaminayay safarkii igu heliyay oo aan kormeer ka wada maraynay gobolka mudug degmooyinkiisa
xildhibaanada qaybta ka joogta golaha deegaanka odayaasha iyo ganacsatada degmada Tawfiiq aad iyo aad baa mahadsantihiin ugu horreyn waan idinka mahad celinaynaa runtii sida qiimaha iyo qaayaha aad degmada noogu soo dhaweyseen nooguna martigeliseen sidii asaakay noogu diyaar garoodeen aad xilligan hameyn ah weli noola joogtaan nooguna soo gudbinaysaan baahiyihiina iyo xaaladaha ka jira degmada aad baa arrintaa ugu mahadsantihiin degmada Tawfiiq waa degmadii labaad oo aan nimid maantay oo degmada Jiriya ma safar ka soo bilowna shalay maantana waxaan ku xijinay Tawfiiq degmooyin kale oo gobol ka tirsanna waa noo harsan yihiin degmada Tawfiiq waxay ka mid tahay degmooyinka ugu fog gobolka Mudug marar badan baa waxa la yiri waa gaariwa laakiin arrintaas waxaan rajaynayaa insha Allah taala inay meesha ka bixi doonto markaan Tawfiiq qorsheysanayna inaan nimaadno waxaan ugu talagalay inay noqoto degmada ugu horeyso aan tagno laakiin Jiriya baa ka hormaray waxaan ugu hormarinay inay tahay degmo runtii aad iyo aad muhiim u ah isu sheegmayna muhiimadda ay leedahay degmada Tawfiiq gobolkan u leedahay ama ay Puntland u leedahay waa ku faraxsanahay caawa baahiyihiinni oo qoraal ina halkan ka sheegteen waxaan u soconay sida u sheegeen isduwayaashu ee safarka iyaguna ahaa urkuurgelidda xaaladaha iyo baahiyaha ka jira degmooyinka farxad gaar ah noo tahay in caawa ku hooyano degmada Tawfiiq guud ahaan isduwayaasha iyo dhammaan tiimkayga safarka ku jiray aad bay noo farxad gelinaysaa in caawa halkan ku hooyano waa degmo runtii aan ognahay muhiimadda ay ugu fadhido gobolka Mudug baahiyaha ay sheegteen oo 8 qodob waxa ugu muhiimsan haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa si dhaqso ah inaan uga soo jawaabno hadday noqoto arrinta guriga degmada oo qabyo ah oo runtii degmada aad iyo aad muhiim uga ah inay hesho guriga degmada iyo xafiiskii iyo mishiinkii laga maamuli lahaa degmada arrinta ceelka ayaduna aan maanta ama galabtii markaan idin nimid aan ka hormeernay oo xaalad runtii khatarna ay ka jirtayna isagana si dhaqso ah wax uga qabanno inagoo la kaashanayna wakaaladda horumarinta biyaha waa agaasimaheediina gobolka u joogay safarka nagu heeliyo ayadana waxaan rabnaa insha Allah taala si emergency ah ina haddii Ilaahay yiraahdo ugu bandhigno wakaaladda iyo cidii kale aan la kaashan karno si dhaqso ah wax uga qabanno baahiyo kala duwan buu runtii lahaa ceelku aad u duugoobay dayac fara badan runtii uu ka muuqday wixii aan ka qaban karno insha Allah taala waxaan rabnaa inaan si dhaqso ah uga qabanno oo lagu dadaalo in maaragtay ceelkaas ay حتى waxa ay muuqanaysaa beebabka magaalada biyaha keenay inay banaanka yaaleen oo qorraxdu markay qabato xataa biyaha magaalada ay kululaanayaan arrimahaas oo dhan insha Allah taala si dhowaan wax uga qaban doona haddii Ilaahay yiraahdo meelaha aan galabta marnay waxa kamid ahaa iskoolka oo kale runtii isaguna aan deed lahayn aanu maleynay inaan uusan qoraalkiina ku jirin isaguna inuu haduu ku jirana insha Allah taala isagana waxaan rajaynaynaa in si dhow wax looga qaban doono waa jooga isduwihii waxbarashadu gudoomiyaha waxbarashadu isbitaalka oo aan hadda ku suganahay runtii wasaaradda caafimaadka Puntland uga mahad celinayaa isduw Cabdinaasir runtii way dadaaleen MCH kan isbitaal buu qalmaa lama oran karo MCH waa meel aad u go'do ballaaran oo adeegyada caafimaadka guud ahaan laga wada helayo oo si fiican loo qalabeeyay waxyaalihii asaasiga ah ee bulshada caafimaadka uga baahnayna laga helayo wasaaradda uga mahad celinayaa in allaaliyo intii gacan ka geysatay MCH kan isbitaalka u dhigmay inay degmada Tawfiiq hesho degmadan Tawfiiq markaan imaanaynay xaaladeeda ugu horeysa waxa aragnay jidkan soo maray runtii dayac ka jiray marka u kurgalayna xaaladaha degmooyinka waxa kamid ah inaan ognahay dadku baahiyaha ay qabaan oo gaarka ah waxa ka ahayd wadada aan ku soo safarnay haday tahay wadada Tawfiiq iyo Jiriya isku xirta haday tahay wadada Seemada iyo Jiriya isku xirta inta runtii kilomitir aad u fog bay isu jiraan gaalkacyo iyo degmada Tawfiiq oo runtii magaalada ay ku xiran tahay Tawfiiq oo adeega ah oo 200 iyo 20 kilomitir isu jiraan arrintaasna waxaan rabnaa ayadana insha Allah taala waxyaalaha sida dhow aan wax uga qaban doono cabashadooda u gudbin doono wasaaradda hawlaha guud ee dawladda Puntland inaan ayadana qorshaha ku darsan haddii alla idmo degmadana haddii ay wada hesho waxay noqonaysaa wadooyinka aadka u dhow runtii mana jirto degmo gobolkan ku taalo oo la oran doono waa degmo gaariwa ah meel kasta oo baahi ka jirto iyo meel kasta oo caqabad ka jirtana waxaan diyaar u nahay insha Allah taala
anagoo dowladda Puntland kaashanayna iyo dhammaan hay'adaha ay khuseeyaan inaan tagno baahiyahoodana sidii aan u dhameystiri karno aan u dhameystirno waxaan rabnaa inaan halkan dardaaran ku kala tagno caawa haddii alla idmo degmadan sida uu isduwaha arrimaha guduhu sheegay golihii deegaanka ka jiray waqtigii waa uu ka dhamaaday waxaan rabnaa inaan u diyaar garowdaan sidii galo cusub la idinku dhisi lahaa degmaduna ay maamul cusub yeelan lahayd dadka la soo xulayna waxa la rabaa dad macna leh oo degmada wuxuu noqon kara inay noqdaan haddii golayaasha ka dhigtaan dad gaalkacyo iyo deegaano kale ka yimaada sidii kuwii hore waxa dhacay inay waqtiga iyagu ka dhamaan nin walba isagu iska danaysto degmadana waxay u baahan tahay odayaashiina magaalada degan duruufteeda iyo xaaladeeda gaarka aan ka warqaba inay golayaasheeda ku jiraan oo xilli walbana la heli karo laakiin dhalinyaradii waagi dhaweyto oo kale oo meelo kale ka timid haday golayaasha qayb soo galaan oo iska yaacaan runtii mushkilad bay iyaduna noqonaysaa arintaasna waxaan rabnaa inaan waqtigeeda u diyaar garowdaan sida isduuhidii sheegay kulay wasaaradda qorshaha ay ugu jirtaa ay waqti dhow golahaas la soo xuli doono idinkana waxa la idinka rabaa sidii ugu diyaar garoowi lahaydeen goortii aad diyaar noqotaan insha Allah waa la idin imaanaya arinta kale oo amniga khusaysa maadaama ay degmadan Tawfiiq xuduud ku leedahay lana leedahay dowladda Galmudug oo degmooyinkeedu ay wax yar isu jiraan degmada Tawfiiq in aan runtii ka wada shaqeyno nabadda gobolkan ka jirta oo muddada la soo kobcinaya maantana meel fiican maraysa waxaan odayaasha ka codsanayaa in nabadaas la xoojiyo shirkii ugu dambeeyay oo degmadan Afar Waaqa ka dhacay oo beelihii walaalaha lagu heshiisiyay Ilaahay mahadi